بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال وإذن سلامي ميكستو الدنيا أتكجوتان. سلام تسكدي الفيديو أنا حنقول ترى لي أن مارتي أن ربا إن أو صاحب كينا أم ولال كينا أحمد عبد الكريم محمد أحمد خير ورينا لوكسي جري أحمد بيف ولال كينا دعدي أما دباتو دعدي أما دب لوكيستي ayuu ku saabsan yahay videogan in maaragtay aan ka cadeeyo halkan dhacdooyinkaasay u dhaceen iyo maaragtay wixii aan ka tabanay haddii aan nahay mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed oo ugu weyn yahay madaxweyneheyna sharafta leh cabdilcasiis xasan maxamed laftigareen marnaba raalli kuma nihin in maaragtay qof muslim ah la dhibaateeyo qof maaragtay walaal ah dhib loo geysto cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa in lagu cayaaro cid ogolaanaysa ma jirto. madaxweyneheyna ugu sareeyo mana aqbalayo raallina kama naqanayo. saas darteed marka walaalkayna axmed wuxuu naga codsaday oo maaragtay uu ka codsaday madaxweynaha, wuxuu ka codsaday wasiirka cadaaladda, anigoo ah wasiirka warfaafinta, mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed in maaragtay dhibkii loo geystay dadkii u geysteen in maaragtay gacanta lagu soo dhigo. marka waxaan rabaa marka in halkan aan ku cadeeyo xukuumatan wa shacban reer koonfur galbeedna raalli kuma aha in qof cirdigiis iyo sharaftiis iyo karaamihiis lagu cayaaro. qof soomaaliyeed in maaragtay dhib loo geysto anaga raalli kama nihin. dadkii geystay marka waxaan halkan ku cadaynayaa xalay waxay ku baryeen maaragtay xabsiga saldhigga ayaa la geeyey, guryadooda laga soo qabtay. maxaa la yidhaahdaa adeerkii oo maamada garaacayay asigna waa lasoo qabtay. wiilkii kaleed oo maaragtay la yidhahdo cabdiqani maxamed mukhtaar ayaa la yidhahdaa, asigana videoga maaragtay dadku usoo wacay oo keenay, asigna waa lasoo qabtay. labadoodaba way xiran yihiin. koonfur galbeed tallaabo sharci ay ka qaaday. maaragtay saaxiibadayda booliiska aaday u mahadsan yihiin. taliya amiin iyo taliya dugudow aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. reer koonfur galbeed macal booliiskoodii ciidamada maaragtay iyo dowladoodii raalli kama naqanayaan in qof muslim ah cirdigiis iyo sharaftiis lagu cayaaro. dhib ayaa loo geystay qofkaas walaalkayna ah. markuu uu codsanayay abtinimo wax ku codsanaya, abtinimada ka soko annaga qofka abti haddaan u nahay iyo haddaanan u ahaynba cidnama kama aqbalayno qof in maaragtay deegaanadan qof asigoo joogo in dad uu ka dhibaato u geysto raalli kuma naqanayno. maxaa yeelay haddii raalli aad ka naqatid waxaa weeyaan adigna dhaalimiinta ayaad ka mid tahay. unsur akhaaka dhaaliman ow madluuman. qofka hadduu dhaalim yahay ummadda waa in laga qabto. diinta islaamka ayaa na amraysa, marka soomaalinimada ayaa na amrayso, diintayna ayaa na amrayso in qofkii dhibaato loo geysto in wax laga qabto. ciidamada marka booliiska aaday u mahadsan yihiin, taliyaasha aaday u mahadsan yihiin, taliya amiin iyo taliya dugudo aaday u mahadsan yihiin. dadkay soo qabteen xabsiga la geeyey way ku mahadsan yihiin. waxaa kale loo dhiman dadkii soo duubay tvgii ama maaragtay beejkii lagu baahiyey arrintaasi oo ay ahaayeen ayagana gaarsiya tv, ayagana maaragtay cabdimajiid wiil la yidhaahda ayaa asigana mas-uulka ah. waa la hadlay asigana saldhigga hadda inuu taga ayaan maaragtay teleefonka aan u garaacay. aan telefonkiis markii la siiyey saldhigga lagaa rabaan dhahay. marka dadkaasna waa lala xisaabtami doonaa. waxaa kaloo rabaa halkan inaan ku caddeeyo baraha bulshada ama maaragtay miidiyaha ama tv ha noqdo ama maaragtay facebook ha noqdo, dadka isticmaalo waxaan u sheegayaa qofka maaragtay bini aadinka ah muslimka ah cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa laguma xadgudbi karaa. haddii qofku wariid uu yahay ama saxaafaddu wax ka yaqaano waxaa weeyaan shuruucda wuu yaqaana. personal attack qof muslim ah haddana weli muslimna aad sheeganayso soomaalina aad tahay, personal attack ma samayn kartid. ama qof maaragtay oo bahdilaad iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo cirdigiisa aad u geysatid maaragtay lama ogolaanayo. baraha bulshadana ama ka wari ahaan ama ka saxaafad ahaan sharciga meelay kaga qoran tahay ma laha. qofka in maaragtay cirdigiisa iyo sharaftiisa lagu cayaaro meelay kaga qoran tahay ma laha. ciddii marka saas ay samayso ay ku xadgudubto qof muslim ah dhibaato ay u geystaan ama maaragtay ay cirdigiisa sharaftiisa ay ku cayaaraan ayagana waa lala xisaabtami doonaa. taas inay ogaadaan rabaa dadka isticmaalayo baraha bulshada. marka walaalayaal dardaaran ayaan kusoo gabagabaynaa.
qofka bini aadamka ama muslimka xuquuq ayuu leeyahay xuquuqdiis waa in la ilaaliyo haddii xataa qalad ay jiraan ama dhibaato ay jirto ma aha in lagu baahiyo baraha bulshada oo meel kasta ay gaarayso daqiiqada gudahooda ay ku gaarayso in qofku wax dhibaato u geysanayo cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa in lagu baahiyo ma aha baraha bulshada waxaad u jeedeen maamada axmed khayr hooyadiisa ninka asigoo la taagan uu dharbaaxayo uu garaacayo abiyuus ayuu ku samaynayaa waxaas maaragtay lama ogolo diinta islaamkana ma ogolo abiyuusnimo in lagu sameeyo qof oo maaragtay la dharbaaxo oo la dilo oo dumar ah maskiin ah waayeel ah maaragtay aad ay u foolxun tahay ninkii waxaas ku fiirsanayay oo soo duubay haddana sii gudbinayo ama sii faafinayo asigna qayb ayuu ka yahay dulmiga oo la samaynayo marka waxaas cid maaragtay raalli ka naqanaysa ma jirto reer koonfur galbeed xukuumadda macal shacabkoodii way ka xun yihiin wixii dhacay way ka xun yihiin wixii la sameeyey waxyaalahaas oo kalena islaamnimadana ma ogolo maaragta soomaalinimada ma ogolo diinteynana ma ogolo marka waxaan u sheegaya in waxyaalahaas laga digtoonaado walaalkayna axmed biifna waa la hadlay xalay ayaan la hadlay axmed khayr allah siiyo waan u sheegay in dadkii lasoo qabtay asigina wuu og yahay oo gurigii intuu wacay loo sheegay dadkii in booliis loo soo diray oo gurigii laga kaxeeyey oo saldhigga ay ku xiran yihiin wuu og yahay axmed marka maaragtay wixii dhacay aad ayaan ugu xunnahay anigoo maaragtay ku hadlaayo maaragtay dowladda koonfur galbeed magaceedi madaxweynaha magaciisa anigoo ku hadlaayo aadan ugu xunnahay abtinimo ka sokow soomaalinimadana kuma jirto islaamnimadana kuma jirto meelay kaga qoran tahay malahan in qof cirdigiis iyo sharaftiis iyo karaamiis lagu cayaaro marna ma yeelayno mana ogolaan doona insha allah waana maaragtay waxaan ku leenahay wixii dhiba ku gaaray ama kugu dhacay maaragtay fa sabrun jamiil iska sabar soomaalina way og tahay in ahlu khayr aad tahay in maaragtay qof wanaagsan aad tahay cid kasta markhaati ay ka tahay maaragtay ilaahay agtiisna karaamo ayaad ku leedahay sharaf ayaad ku leedahay maaragtay ilaahay maaragtay cibaadadan ha ka aqbalo marka annagana waxaan ku leenahay iska sabar dadkii dhibkaas geystayna waa la xisaabtami doonaa marka reer koonfur galbeed waxaan leeyahay wax kastoo arrimahaas oo kale la mid ah ha laga hor yimaado gacan birna ha lagu qabto dowladdan ha lala shaqeeyo aad iyo aad ayaad umaasan tihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu